waxaa jirtay aasiya suqra dawlad ka dhisnayd oo turki ahayd dawladda turkiga dawlad gaalaa bay ahayd daqaaq nin la odhan jiray baa ahaa madaxda u sarraysa ka mid ah ciidamada haystay waxaasi inaanu dhalo saljuuq la yidhaahdo ayaa meeshii dhaxlay inan caqli badan buu ahaa dawladnimadii baa ku dhisantay nin xooggan buu noqday boqorkii meesha joogay ayay gabadhiisii xaaskiisii waxay tidhi kani hadduu sii joogo meeshuu kaa qaadaya war ninkan ka takhallus madaxdu had iyo goor nin ka fariidsan ma jecla ninka madaxweynahay wasiiradiisu waa inay ka caqli hooseeyaan dee dad mid kaa fariidsan keento uu ku hadhaynaya marka inta badan madaxdu ninka sulta haysta ma jecla cid isaga ka hoosaysa isaga ka sarraysa ma jecla dee cid aad wadi karta waa inaad ka haysataa ilaa nima aad wadi karin haddaad ka haysato adaa jabaye way u cabsatay in uu ninkani ka qaado meesha markaa waxaa la yidhi ninkan ka takhallus ninkii waxaa la damcay in laga takhalluso saljuuq ibnu daqaaq wuxuu ogaaday in la dilayo dabeetana qabiilkiisii raggii ugu roonroonaa iyo ciidamo wuxuu la baxsan karayay rag 400 oo nin iyo wax gaadhaya buu goostay u baxsaday wuxuu u tallaabay dhulkii muslimiinta halkaasuu iska degay muslimiintaa soo dhawaysay ninkii diintii baa loo sheegay wuu islaamay gruubkiisii la socday waa islaameen meel yar buu samaystay dawladdiisii baa sii xoog badatay way soo socotay waxay soo gaadhay inanku awowga u ahaa yacni taqra albik ninkii la odhan jiray taqra albik waa ibnu daawuud ibnu mikaa'il ibnu saljuuq weeyaan taqra albikaasi ayaa xoogaystay khuraasaan iyo intaasoo dhan buu isku qabsaday dawlad yaroo xooggan buu noqday boqorkii halkan shiicadu ku haysatee nafta haysataa waraaq hoosta uga dirtay oo meel iskaga xidhan oo yidhi war na soo gaadh haddaad na soo gaadhi karto taqra albik baa ciidamadiisa soo kaxaystay wuxuu qabsaday baqhdaad buwahiintii buu ka takhallusay dawlal islaamiya baa dib u soo noqotay waa geeriyooday walaaladii raggii baa sii qabsaday waa alabarsalaan baa dhaxlay alabarsalaan wuxuu ka mid yahay boqorradii ugu cadaaladda badnaa ee soo mara taariikhda islaamiga wuxuu ka mid yahay nimankii maxaa la yidhaahdaa alxuruub asalibiya alula waathaaniya waa ninkii ilaahay gacantiisa ku joojiyey wuxuu ka mid yahay dawla sunniya ninkii dib u dhisay ee xoojiyey ilaa shaam gaadhsiiyey dawla alfaatimiya joojiyey bal dawla albisantiya dhul badan ka furtay dee malaad dakar waa taqaanimo filay macrakada la yidhaahdo qisaskii ugu cajabta badan leh isagoo meelaha si dagaal ka wada ayuu boqorkii byzantiyiinta qustantiin haystay dawla albyzantiya haystay baa ciidamo urursaday ilaa 200 kun ciidan gaadhaya bay yidhaahdeen wuxuu ku talagalay inuu muslimiinta oo dhan ka takhalluso alabarsalaam baa loo sheegay oo 20 kun oo ciidan ku dhadhow wata qaarkood 15 kun baabay ku sheegaan wuxuu yidhi maxaan yeelaa nin sheekhoo la socday baa yidhi maantunbaa magac iyo jannaba kuugu dhowday maantadanaynu joogno laba midunbaad heli taariikhdu nimay qorto magaca leh oo muslim oo dhan badbaadiyaad soo bixi ama jannadaad hore ka geli ma meel la shakiyaabaad joogtaa ciidamadiisii oo dhan buu isugu yeedhay oo yidhi dhegaysta maanta laga bilaabo boqor mayhi sidii boqorna waxu amri maayo gaala wayse soo urursatay waxaan go'aansaday inaan dagaal galo idinna way iga fasaxantiin wixii ila dagaalgelayona way ila dagaalgeli kartaan wixii iska tegayona waad fasaxantay waxay idhahdeen boqor mar haddii islaam la difaaciyo aad ilaahay dartii u dagaalamayso waa kula dagaalgelaynaa 20 kun baa la dagaal galay muqadamadii ciidanka laysale wuu jabiyey dabeetana hudnu u diray waar iska heshiina buu ku yidhi gaalkii dee ciidan muu haystaa ciidanka badan wuxuu yidhi heshiiskaad sheegaysa waxba kama jiraan nin baa la kaa dhigay wax iska dhici wuu diiday hudnadiina waa la isgalay intay jabiyeen bay boqorka laftiisii soo qabteen boqorkii qustantiin baa la soo qabtay dabeetana la keenay maxaad filaysaa buu yidhi inaan kuu sameeyo 3 baa suurtagal buu yidhi waxaan kaa yeeli lahaa inaad iga yeesho oo inaad dee si xun ii dishid ama inaad itashiriso i xumaysid ama caynkaa u karameeyo waxba kugu samayn maayo buu yidhi isfuro maxaan isku furtaa 1 milyan oo diinaar bixi baa la yidhi 1000 diinaar
wuu aqbalay 1000 diinaar buu bixiyey dabeetana wuu sii daayey intii halkan lagu hayay gaaladii surursato waxay dhahaan boqorkiinoo mid kale caleema saareen gaaladii intii hadhay iyagaa isku jabtay oo 2 boqor bay yeesheen dabeetana ibn al-aswad saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu yidhi aniga iyo 2 nin oo kaloo ila socda ayaa nebiga soo waajahnay buu yidhi iyadoo gaajal daraaddeed aanan dhagaa wax ka maqlayn buu yidhi yacni cahdu saxaaba ee koowaad waa soo qaxeen waa soo hijroodeen xoolo iyo wixii haysteen oo dhan waa lagala hadhay magaalada madiino yar bay yimaadeen ahlu safa dad badan baa masaajidka nebiga iska joogay aan waxba haysanin dabeetana almuqdad ibn aswad wuxuu leeyahay aniga iyo 2 nin oo kale anagoo gaajo daraaddeed dahabad asmaacuna buu yidhi wa absaaruna min aljahd dhagahana wax ka maqlinin dhaana wax badan ka arkaynin ayuu nebiga isu soo bandhignay buu yidhi haddana baryadana waa ka xishoonayeen iyagoo caynkaasiya cid waxna siisana maanan helin buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam baa yidhi buu yidhi warbalayna keena saddexdiiba wuu kaxeeyey laakiin muxuu nebigu haystaaye u siinaya gurigiisa waxaa jooga 3 neef oo riya ah 3 neef oo riyaa buu yidhi hala liso waa 3daasaa guriga jooga buu yidhi intaasaynu wada cabbaynaaye inoo qaybiya wuxuu yidhi waanu nimaadnaa waa lisnaa dabeetana 3dayadu inin baanu cabnaa in yarna nebigaanu meel u dhignaa marka uu nebigu yimaado calayhi salaatu wasalaam ayuu salaanaan ka hurdana toosinayn ka soo jeedaana maqlaya buuna salaamaa intuu masaajidka soo galo tukado ayuu salaantaana salaamaa buu yidhi dabeetana waxaanu soo qaadnaa intii yarayd aanu isaga u dhigno intii baanu siinaa maalintii dambe ayuunbaa shaydaanku ii sheekeeyo waxaan idhi buu yidhi war nebi maxamed mala isagu kolley meelaha waxbuu ka soo helayaaye intaan soo kacay ayaan intiisi yaraydna ka laacay buu yidhi intii yarayd aan nebiga u dhigi jirnay waan soo kacay bilo xadiis saxiix muslimku ku yaalla intii yaraydna waan cabbay buu yidhi markaan haddana cabbay ayuu shaydaan haddana i warwargeliyo wuxuu yidhi buu yidhi way bal waxaad samaysay intii yaraydee nebi maxamed baad cabtay maantuu ku habaari doona ee ahlu naarkaad ku biiraysaa ayaan haddana isidhi buu yidhi anigoo warwarsan aakhiriya adduunba beeshay baan sidhi buu yidhi intaa yara caani dabeetana waan soo kacay buu yidhi intaan shamladayda yareed soo qaatay marada yaraan sita buu yidhi haddaan xagga sare saarana caga ay muuqanaya haddaan xagga hoosana xagga sare ay muuqanaysa hurdaa iga soo degi weyday buu marada yareed baan isleeyahay huwa buu leeyaho kolla madaxaan ku duuduuba kolla cagahan geliya xagga sare ay qaawamaa yacni xataa wuxuu wado ma haysto hurdaba way iga soo dhici weyday buu yidhi markaan cabbaar galgashay ee hurda iga iman weyday ayaan waxaan isku dayey buu yidhi inaan talo kala keeno waxaan sidhi buu yidhi war nebigii hadduu sidan ku yimaado oo gaajoodo oo ku habaaro ilaan liibaani mayside waxaan isku dayey buu yidhi inaan kaco oo muxuu samaynayaa marka kan middi baan soo qaatay buu yidhi dabeetana waxaan sidhi buu yidhi de haata nebigu yuu kugu gaajoone 3 mid qaloo nebiga u qala neefafkii yaraaye meesha joogay ayuu soo kacay markii aan imi ayuun baan arkay buu yidhi haddana neefkiiyo durbaba xigsimooday oo caana ku jiraan dabeetana waan lisay buu yidhi sirriyihiiba haddana dib bay u darareen waan lisay buu yidhi xoorkaa ka soo duulay dabeetana waan soo qaado nebigaan u keenay buu yidhi nebigiiba wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam asharibtum sharabakum alleyla caanadee badan buu arkaa war caawa miyadan intiinii cabbin markaasaan idhi buu yidhi maya cabna ilaahay rasuulkiisiyo yaa rasuul allahi ishrab adigoo cab baan idhi buu yidhi markaasuu cabbay dabeetana wuu ii dhiibay buu yidhi markaasaan idhi buu yidhi yaa rasuul allahi ishrab cab ishrab markaasuu cabbay markaasuu ii dhiibay markaasaan idhi buu yidhi cab ilaahay rasuulkiisiyo markii uu nebigu cabbay oo aan gartay buu yidhi inuu si fiican u cabbay oo markii hore weelku madhnaan nebigu uu duceeyo wuxuu yidhi
اللهم اسقي من سقانا واطعم من اطعمنا ابو كدعي ويلي markii aan waxba ooline uu nabigu weelkii waxba ka waayay yara markaas aan qoslay buu yiri dabeetana qosol baan la dhacay markaas wuxuu nabigu igu yiri ihda sawatika ya maqdad xumaaga mid kamid ah weeyaan maxaad samaysay buu igu yiri waanu sheegay qisadii baanu sheegay buu yiri wartani waa naxariis xagga ilaahay ka timiye ما قلنا كلنا كعسيد بيقول هينا لعباني إلهي رسولك سوى دين ولا بدنا نلعبنا عندنا دن كملي بيقول علمي قال لك على قاطع كلجر كلام كلامان يستو ولذلك هذه يقول واحد الماما نكتة يكشف نيكي غاندي لورنشري مهاتما غاندي إننا قويها نبوها وودن كيس الربي حرمة إنه هرسيده وأركتدم باسيفن كلايدا محيدا دان باسيفيسم إن سن بدقلية الدجال كوجا شيد أركتدا دوني ده كوفا فيه مهاتما غاندي أقويهم بوها لكن وحكسن تاجي شري دقن عد كلين وقاطه سو قاد وحو حدن شري لبقو عد يقول بقادن شري لبقو دين تنو هيستي دت كيسو حي دقن ولا هاي قو هو سمر كل كنت ده أنت الله ضو بابا ده بجلس حاجة ده مالك جليه marka labada din dhexdooda inta laga saaro go'a ayaa sidan bambarka carruurta loogu xidho kale ayuu xidhan yahay dadka waaweyn ma saa u xidhan waxay sheegaan isagoo wixii saa xidhan buu ingiriiska iyo meelahan yimi wuxuu rabay inuu boqortooyada la kulmo oo uu ka dhaadhiciyo xorriyadda waddankiisa inuu helo markaa ushiisiina sita labadiisii go'ana sita ay dhahdeen mid ingiriis baa oo taygiisii ku bakhtiisan oo xidhan baa wuxuu ku yidhi what is this waa maxay maradana dabada gashatay ku xidhantay maxay tahay gaandiintaanu maradiisa ka jawaabay wuxuu weydiiyey what is this taygii uu kana xidhnaa ayuu yidhi kani waa maxay ninka wuxuu yidhi this is necktie kani waa qoorta bahalkii lagu xidhanayo waa qoor ku xidhad and this is back tie buu ku yidhi markaa يعني محا كدغاي ادغو مراداد قورتا سودتنا wax musallama anigu taan dabada sudhayna maxaa wargeliyay hadba qoortaad mid iskaga xidhaye ana halkaas qisa dariif oo aad u qiimo badan ee jamaa min salaf sheegan shacbi baa kamida abu nu'aym ba fil xilya ku sheegay waa qiso xikma oo lagu la baxayo hadal murti weey hadal ba lagu la baxayo shacbi wuxuu yiri waxa la sheegay شعبي ومن أمة التابعين وتقرن ريسا نيمبا وحوق وقعد صدي قبصدي شمبرت اللي هذا قنبروغا ما تقانا وقول لي ذا كدري هاي لكن وكيري هاي قول لي ذا درك كذا لكن وكير قنبروغا اللي هذا شمبرت تاسو قبصدي نين مركو نفسي يلا هذا شو وحيد تري نية وهاي ديلن بيت هذا الديلين صدق حكمك وأنفعنا كل شيء بيت حول محاوضا لهذا وحيد أنا هذا الدشود يعنته هلو يتشيل هذا هلي بقبته وحبك هقتر ما يجي قاعدشك وهيسن هرتا كاها قبتر ما هي واحد يدي شاب هرتا بلاش أيضا سيدات هذا أنا صدق حكمان كل شيء هي نادي الدليل هذا قو أنصت ويا هي بوري وحيد الحكمة كوبات مركز يسيد يسان كل شيء حكمة الله بعدنا مركان جيت كافولا كوشيجية مدة صدحنا قوة دير مكان ركضة كجي يستاهو يا كوشيجية علماء هذا البيك ربح حياة وأنا حقيقة جرتها هذا مركب بني آدم كله فيري بركاسو سيداي وحيت لحكمتك وحاول لا تلهفن على ما فاتك عفوا يا أنا خلد وحيت أنت سيدين horta mid baan kuu sheegay waxlaan aan ka tagin mid baan kuu sheegay markaad isii daysara oo geedka fuulna mid baan kuu sheegay markaan qowga fuulna mid baan kuu sheegay ta koobaad waxa weey wax ku dhaafay bay tiraha ka qoomayn sidaadu wax ku dhaafay shalaytiyo qoomayn kugu reebin dhig karna isu kugu ridin waa laga socdaa way ku martaytaa ha ka daba tag waa gartay buur geedka markay fuush يا وحول تيسد لبعض حكمة لبعض يبلغ قاضي سودا وحيث لا تصدقن ما لا يكون أنه يكون هالرومين بيت وحان دعين إنه دعي دونه
waxaan hadda adan aragoon adan hubin inuu dhici doono ha aamini kadib markay geedkii fuushay bay la hadasho waxay tidhi doqon baa tahay tidhi maxaa yeelay nin ayaan daroon nasiib xunna waa tahay tidhi haddaad i qabsan lahayd ood i gowrici lahayd meeshaa dhuuntayda ee gulgulada ama xawsalo la yidhaahdo waxaa ku jiray tiri laba dheeman baa ku jiro mid walba ay u dhiganto 20 diinaar oo 20 mithqaal culaysku dhan yahay 20 ku dar 40 diinaar oo dahab ah waa taqriiban 170 gram oo dahab ah 170 gram oo dahab gabdhaha lagu guursada hadda soo ma qaybna meer baa loo siiyaa qaybna guriga lagu dhistaa marka waxay tidna ayaan daran baa tahay oo nasiib xun intaad i qabatay anoo meeshan dahab iiga buuxay iyo dollar yaad isii days aad buu ninku u shallaytoodo waa qoomameeyey markaasuu ku yidhi waa yahay markuu ilmada iska tiray buu yidhi intaa gartay bal tii u dambaysay ii ballan qaaday shaydaan baa tahay tii u dambaysay bal sheeg xikmadii u dambaysay markaasuu waxay ku tidhi seen xikmadii u dambaysay saddexaad kuugu sheegi adoo labadii horeba halmaamay maxay horaan ku soo tidhi wax ku dhaafay ha ka shallaytoon waxaadan hubinna hubaal ha ka dhigin labadaasoon kuu soo sheegaa ood hilmaantay midda saddexaad maxaa lagaaga dhigay bay tiri doqon baaba tahay haddana waxay tidhi inaad doqon tahay waxaa ku tusaysay tidhi aniga qumburow baa la yidhaahdaa waxay tidhi baalkayga iyo hilibkayga iyo laftaydii iyo ludda iyo dhacaan waxaan leedahay laysku daro culayskaygu 20 mithqaal ma gaadhay tidhi waad og tahay waxaanan kuu sheegay meeshaan inay ku jirto 40 mithqaal seed horta u rumaysay tir dabaalnimadkaada seed u rumaysay ayada dhan baan dhannayn waa waxaan 50 gram ka badnayn oo waad aragtay intay leegta waxay tiri laf iyo lud iyo tim iyo baalkii wax dhaad la isku daro ma dhanni wixii aan kuu sheegay nuski xataa ma dhanni waana rumaysay adiga oo hayay ilmada duuga hayay lacag bay dhaaftay dollar bay dhaaftay caku iyo caku farta qaniisanta marka waxay culimadu midaalka u keenaan waa misaal ay u keenaan iyo xikmo loogu talagalay qanaacadu iyo iimaan samidu balaayo badan bay ka badbaadaysaa hunguri la'aantu ama iimaan la'aantu waxay kugu ridaa balaayo ku dhex fadhis caqiidarna way kugu abuuraysaa inaad been xataa rumayso been aad rumayso 40 mithqaal oo dahab ah xagee laga shimbirta wada garta haday xagee tahay mid kale qooleydu meesha waxa kuma qaadaba midda waaweyn qayb laakiin qumbirogu wuu baahal yaro halkan ka gaaban way qoolida nuskeeda ma qaadi kara waxaas oo dhan wuuna aaminay muhiimadu marka waxa weeye degdega adduunka iyo xooladoonku iyo bil raadisku iyo hebel baa ku dhaafaydu Soomaaliya iyo sidin ku ridin meela daran hadda ka hor qisay waxa nina meel sheekh ka ah marka sheekhani waa nin ragad maahine cilmiga ma yaqaano dadku iska waabsada marka laakiin mid uu imaaday maalinka dambe marti oo sheekho laakiin wax yaqaana wuxuu dadka ku wacdinaa oo leeyahay قال تعالى إلى يحور فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا تكذا ما طاب لكم من النساء مثنى لبلبة تكذا وحلقوا على صلاة الصبح يو الرباعة يو الثلاثة والثلاثة والرباعة ثلاثة ومغربك والرباعة وانت كلا مركب فانكحوا تكذا شيخ هو يابي وحوري انتوا الله هذا إلهي بانكو دار شيء ما فانكحوا بها تكذا وحوري ومحay tahay deynayeen fankuxu tukada maxaa lagu fasiri karaa markaas uu gartay markay meesha in la soo galay bas inuu meesha cishtan uu rabo odaygu oo fankuxu tukada la isii ahaato wuxuu dadkii intuu la hadlay dhageysta ninkaas bari subax ayaan masaaki isugu imaanaynaa waana doodaynaa qofkii cilmi la idinkaana kala saaraysiin dad dadweynihiin saddex su'aalood baan weydiinayaa hadduu saddexda baan waan ka helo oo uu yiraahdo ha hadduu ku jawaabo inuu san waxba aqoonin oo mid dhaalim ah oo aniga gardarhaysana inuu yahay saa uu ogaada waayahay bas meesha la sugu imaaday wadaadkina uu imaaday haye sheekhi haday ugu haysay fankuxu tukada aaway waa anigu ana kugu haysay fankuxu tukada ma ah markaas uu yiri su'aalan ku weydiinaya markaas uu weydii
إلهي سو مدهن قل هو الله أحد مركز سوري ها الله السمد سو إلهي مدهن ها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفار أحد سو إلهي مدهن ها ما هي تات أربعة عندها كله والسكوب هذا مركز ninka saddex mar haama kaga sii horta muxuu rabaa marka meeshu rabaa inuu qaso way isla qasantay marka dadkii waxay dhahay marka culimada kala qabta hadda kismaayo waxa ka socda waxa waaye culimada kala qabta qisa ajiiba qabsatay wadaadkii loo dhan jiray Ahmad ibn Mahdi wuxuu yiri anoo habeen Baghdad maraya habeenimo iska lugeynaya xaafad Baghdad kamida bay haweenay igu soo jiri markaas إسلامتي وإيدنا شيغتي وحيد جري وذادو امتحان يربع يقول دعي وادويد بانين اكفصدي حامل عن عشين كي يجيب عرض ماضي مركز السؤال اللي يدين وايينا أضانكو شيغتي ومحاري وحائق با أحمد بن بهدي نيهو إلهي بانكو قد داير شيء هدي اللي يكاويديو هاي ينكرم بيت راي الضفري فلو شو فرس هذو انت العشاء تكتي بلال كدقاقي وهدا ياسين سعوده هذي قبل حجام ودود كو يستاغتو نيو حاملان اهي عذر كاسنا يغو دحاي هبل با لا يدada ري هبل او نسب شيغته وليبا ciday tay qoysku dhamay u sheegtay magaceeda bay u sheegtay waxay jiri hawshaas ay ugu dhacday haddana shinkayga baa dhamaado sagaalkayga bilood baa dhamaaday فريركنا وحان كوري وداد كاسا يقرصدو يقبو ilmaha sagan ur u leeyahay hadii la ka weydiiyo niyo ilaaban kugu dharshay hay fadaxayn oo maxadii waxaaskay Ahmed Mahdi wuxuu intaan yaabay oo waxaan ku hadla garan waayay waan ka dhaqaaqay iyadoo taagan oo ma jawaabin buur wadadii baan ka leexday xaqaasan iska aaday دور هبين كدب ايوه مشي gabadhi wiil bay dhashay anoo masaajidka xaafada ku tukado iska fadhiyo yaa baliyahan baliyay buuri aad waxaan ugu farxsanay wiilka ku dhashay imaamkii masaajidka odaygii xaafada wadaadii iyo qaanay kulli maxay u yimaadeen taaniyahan baliyo lagu hanbaliyaynayo wiilka u dhashay wiilkuna yaa u dhalay gabadhi habeen dhawood u istaagtay wadada tiriniyo way ceebayni dibkaas dhacay waan ku sheegtay yaani u fiirsad culimadu waxa qabsanay waxaan iska dhigay buuri wax ku farxay wiilku u dhashay muxuu sameeyaa wiilkii ii dhashay wax ku farxay baan muujiyay waan xamdiyay kadibna imaamkii masaajidka yaan 2 diinaar u dhiibay waxaan dhib lacagta u geey islaanta xoogo waan isku dhacnay inaan u taga mar rabee 2 diinaar u geey ha ka dhigato umalbax ka dhigatay waa dahab 2 diinaar waa lacag aad u fara badan waa 9 gram oo dahaba 6 kun oo shan ugu dhufta lacag yar ma aha marka biil waan dhiibay bil walba biilkeedaan dhiibahay buu imaamku saadkan ugu dhiibaa 2 sano markay gabadha sida ku joogtay yaa wiilkii dhintay buu wiilkii raaba dhintay 2 sano bil walba biilkeeda iyo marashii masruufan u dhiibahay rag waxa qabsaday culum waxay soo mareen idinkuna nijaasi hay sheegeen ma dhihi lahaydeen banu maynay shaqul Soomaali ilaahay bay ku dhaarso waxay tirahay fadaxayn awoogan wuxuu leeyahay adu waxaad ka sheegaa wuxuu kuwa dhaleen baba inkarayaan kuwane ku arutay dhaleen bay gabdhaha ku dafirhayaan meersadan bay ku dafirhayaan aad ku sii mashquul maayo dib ma leeyahay marka 2 sano markaan biilkii aan waday yaa wiilkii tii alla ku timid hadana xaafadii imaamka reerku dhan baa isoo tacsiyay buu sheekh hebelo sheekh Ahmedo inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay 'indahu بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب وان اسمر جيب ولانو مرك نين ويل كدنتي بان اسكا دغاي غيري ايان ميشا سو دغتay maalma kadib bay gabadhii say ugu soo heshay ba hadana way ii timid anoo socday qabatay dhab waxay tiri Axmedow khayr Allah ku siiyo ceebtada asturta Allah ceebtada asturo
maalinkii ay umushay lacagtan u dhiibay ilaa 2 sano biilkan u dirahayay oo qandi ku waday ii keentay buuri oo tiri dahabkaad oo dhan waa ka inaad ay asturtaan rabay biil iyo marashii masruufi adduunyo kaama rabin bayt wana ceeb asturtay ceebtada Allah asturo lacagtadina waata xaaribu lacagtan wiilkan ku xiriirinayo wiilkaana iska laha asaga haduu dhintayna adaa dhaxalkiisa leh ka qaadi maaye huwa laka intay ducaysay dabkeeda qaadatay laabatay buuri saasaan rabbi ugu asturay baa aniga muxuu sameeyay sheekhaasi halkan way hadee been buu sheegay Soomaa muxuu sheegay inuu gabadh muslimada ceebtada asturo oo sheegatay in la kufsaday في أحد غزوات النبيين وبحجر صلى الله عليه وسلم غزوة كمدة أي النبي الصحابة كل رجال يجري سفرك ونقول دريا هاي سهيدنا ويكوبان تهي نين ولو بالمان توح الله بحكرت الله بح عمر بن الخطاب مالين تامركم مغلي وحي كسر دعدي بودي مالين أنا أبو بكر كجبرونه markaasaan is iri wallahi in badan baad Abu Bakar isku dayday inaad khayrka uga badiside ka badi kari weyde maanta aad fursad heshay waad ka badinaysaa maanta oo fursadda Umar uu haysto waa maxay Abu Bakarna waa faqiir waa markii Madiina loo soo hijroodo dhaqaalaba ma haysto Abu Bakar Umarna waa nin maal qabeen oo ganacsi buu leeyahay markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa nin walba wuxuu bixiyay weydiinaya walibana maanta aad maxaad bixisay ya rasuul inta soo neef baan keenay anigu ma sha Allah ka qaada waradna maxaad keentay ana inta soo ariyaan keenay ka qaada waradigu maxaad keentay inta soo nin baan aniguna saydooda keenaya ka qaada Umar oo socda markaa yimid ragii ka horeeyay Umar wuxuu nabigu weydiinayay waxay la baxeen buu weydiiyay لكن عمر بن الخطاب نبي سؤال عجيب ويدي وحو كيري يا عمر ريركاغا maxaad uga timid bali sheeg buu yiri ماذا ابقيت لاهلك صحابته intii kale oo dhan waxa la weydiiyay waxay keeneen in la baxayaan laakiin Umar wuxuu nabigu weydiiyay xad maanta Umar oo adigu nasid maxaad reerkaaga uga timid bali sheeg markaasuu yiri intan aan wado إلا أقوم بانوغا يمدي بودي مثال هان كسو قادن بقول كون هايست أو كنتم كون كاني كنتم كون ريركي بوغا يمدي زمن كوداس مصاريف الريرها waxay ku bixiyaan baa la yiri way isma sheegi jirin laana Umar haduu sheegi lahaa كنتم كون reeraha uga yimiday نقصان با عمر هلكا كغا موقن لهي نولشيسا وايو waxa la ogaan lahaa ma maasha asxaabu rasuulillaah in ay dhagax caloosha ugu xidhanayaan ahlu sufiina xabad timira ay ku cuntaynayaan ayuu Umar xoolo inta la reerkiisa ku dhaxaysta halka nuqsaan ba ka soo gaan lahaa Umar diintiisa lidaalika Umar ma sheegin wuxuu yiri intanaan wado in lamida baan uga imiday buu reerkaygi midaal ahaan boqolkun bay ahayd كنت كنا أو كأنه كنت أنا أقول هذي أبو بكرنا وحى وكأنه يا ما بجرت بقى وفقير عمر يسقوا وحفلة يا إلا إذا هذا محاد كنتي وهذا كنت كن بكأنه أبو بكر وهذا كنا محاد كنتي وحما هيست النبي الله وما أنت ده عمر إذا أبو بكر هذا كبدية ما أنت وهذا فهمتين منو ملاين لكن سؤال النبي هو حيقول على السدن ماذا أبقيت لأهلك يا عمر يا عمر يا رهاق محاد وقتي مدي أنت نان وضع إن لأقبان وقايم دبيبي أنت مركان لما ويدي شغل لما ورا أنت ما أنا شاقي كرو أنت الرير كان لو ويدي أنت إنما مش شاقي وحش وضو يا رسول أنت نان كان إن لأقبان وقايم دبيبي أبو بكر والسعودة يمدو يدي يا رسول الله أبو بكر أنا الرير كان محاض وقتي مدى الشاق وعلي إلهي رسول قصان وقايم دبيبي بلا مصاريف بلا وحبا مركب النبي قال يا عمر وقصله وحكوا يا عمر لبدي الناس صدق انت لبدي الناس هذا اللي انت ودحيسا ايا درجتنا جنده ودحيسا ورسولك كو يري ومالك عمر يري هديت لما انت كدبيس ابي بكر دمبو لا ترتميا way hadhay
waad fahamteen maanu malay تنافس وسارعوا وسابقوا فليتنافس المتنافسون بإلهي سارعوا الدنيا مركا اللي نقلها الله إلهي وحول فامشوا في مناكبها أصعد الدنيا أصعد صعد كواسدا صعد واتغانا ذكرك إلهينا فاسعوا إلى ذكر الله سعي قبال ليري وصعدك كسر رأي وأودك دقا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تنافس هنا ومحي وترتم لما قفوا الشرط هلك الله دقي وترتميس سو كلا بديان جنة مركز لقى هلا يو لما نينو الشرط الله دقي سيده أوبر تمام بإلهي وصبر تمام بإلهي لكن إلهي حقي سمرك اللي يرينا وحال يري ففروا إلى الله فرارك ومحي nin libaxariin ay ka warrama laba nin oo sharatamaysa oo sharad halka loo dhigo baratamaysa iyo nin libaxariin ay maska orad ba orkay orad badan alhamdulillah allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in arintii sheekh mustafa hada uu ka hadlayay baan ka daba tagayaa ma oranaye aan qasayro iga soo martay idin sheegaya وقل سيروا في الأرض كسابسا قل سيروا في الأرض قسوي ماذا كل ما يساعد نيوزيلاند من ليلة أدونك ماشي وقودا بيساع حق قرح كصباح أيان أودو لاني وكو أحلال خضرة أو حق خروج كبحر مركا شن إيا لباتن ساعة وسوقين بديارات دي نسيوة دي ماشا أرنت هذه شيء إيقادا شن إيا لباتن ساعة خطر إلى يعني نيوزيلاند dhexdeeda diyaarada sii fuulay markii isu geynay 25 saacadood jihada aan u soconay waa jihatul mashriq waa qarrax ka soo bax diyaaradu inta u socotay guri anagoo fadhina lagu casuumay baa waxa yaalay mujassamkan ama kuradan ama baloorigan ku sawiran qaaradaha Soomaaliland arkay ayaa hortayna yilay nin duqaha Allahu naxariistay oo أصلاً رئيس بادينا إسكاها لكن أجاز كحاجة كأها ضد كنا للسعودية آية إسكاها اللي وحويري أشهد أن الله صدق وأن الذي وضع هذا كذب الله يقول والأرض بعد ذلك دحاها وهذا يجعل الأرض كرة ما فهمت هذا كم مرخاتك يا إلهي صادق وي كانوا بيننا بهالكن سمي dhulkii kura ka dhigay marka hadalkii baan qabsado waxaan ilay Abu Abdullah la oran jiray Abu Abdullah adu inaad rumayso dhulkan inuu kura yahay iyo inuusan ahayn inuu wareegay inuusan wareegin waxba kuma dul saarnay yawm al-qiyaamah ilaahay ku weydiin maayo maxaa dhulkan inuu kura weeyo banoori weeyo maxaa u oran weeyay ilaahay ma ku dhahay insha Allah laakiin waxa laga yaabaa su'aal inay ka timaado inuu ilaahay ku yiraaho هذه هذا الكيغا هذا سكل ودودي والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها مركا هاي سكهر كين بانري كلام الله هذا مشاهد كي دتكو أركيا تلما نهم بمركا وحاري هذا ماشي أنجوجرو عاصمة أن كان من أوكلاند بالليلة ديارة بالغ الراعة يوضع الله سعود أمريكا ديارتي هذا نشوف ودي شن إلى 20 ساعة ضد بيسوي سعودي أو حاجة يسوي سعودي بري يقرح كصباح طيب هذا معناه إن تكنولوجيا لوس أنجلس أو كله يوم دول كغربي كأمريكا كحق قرح وبحر قرح ودع دين عذاء هذا معناه إن تكنولوجيا أنه هالكن تاجن وديارتي هالكن نجا قاضو معناها فلايت أما دولتان وحنسميناش كنت نساعده لأن قدر إلى لوس أنجلس نواشان إلى 30 ساعة تقريبا marka 50 saacadood isu geeyntooda ayaa meesha ka soo baxaysa hadaan qarbi qorrax u dhax u socono marka hadda halkan diyaarad ka raacaysa Auckland 8 saacadood kaliya ku sii wadaysa Los Angeles baaba joogtaa kale aan israacnaa hadda doonayso duqi wayahay arintii ma runba hadda kan aan israacno halkan aan ka baxno diyaarad ma raacayna 25 saacadood aan soo ka yar waxaan u malay 8 saacadood 9 saacadood
Los Angeles baabana taaganay marka waa arrin iska mushaahada waxaan warka ku soo gabagabaynayaa umuurahaas isku mashquulintooda ninkii dee takhasuskeeda iyo umuurteeda iyo adiladeeda baaraya وأهلا وسهلا والأبهان لكن واحد مشاهدة هو لا أركو أو تقدم الأمر على الجدال إن ما أنت لقده إن ولي اللي يسكون مشغول وحكى في عن إن وحي مهمة يسكون حسوسية بريبان أنا جماعة خروج كبة حدا ماشي الليلة مناسوتا سعيد يحيى الله نحرسته رحمة الله عليه أيا يجي يروح حدا إنه صوبه صومالي هالكواب بديه هنا وبريه دولي المهم ماشي مناسوتا تجي marka masaajidkii markii hawshii kalimadii waxay dhamaatay baanan yimid waa isgaranay inaan reer xamar islaahayn kaas balbalaar meesha leeyahay xamar ciyaalka xaafadda mutaqaan ciyaalka xaafadda islaahayn marka wuxuu yiri sheekhu dhibaato ay haysata horta jamaacadu waa kuwa yiraahdo khuruujka dadka nala baxo wuxuu yiri waa ku qasbanahay balahan anaa khuruuj iska ahaayo guriga waa baliga soo hiri marka alxamdulillah daaman meelan saxda aan idinka helo waaba fiicanta kowda laakiin bal waxaan rabaa buu yiri meeshaas cid kale oo igu celin kartaa oo adiga aan ahayn mar ilaahay baa ii ka soo diray qofkaas cid ay wadaadadii dhulkan joogay way ka maqli weeyay sheekada waxba ka maqli marka ina keeno bal iraaco telefoon iyo waxaasna wax ma tarayaan waa inaad adigu tagtaa guriga tagtaa adigu sidii baa dhacday alxamdulillah gurigii baan tagnay sidaa uu hadda shaacali sheegay barbaryo iyo ballama aan kala galnay iyo inuu ninkan hagaagi doono iyo inuu fiicnaan doono ya ilaahay ba toobada waa aqbalaa in toobadiisa aad qoosho allahu latiifun bi'ibaadihi marka waa badan yihiin sheekadu taasi kuwaasay ka mid ahayd alxamdulillah ninka ala kulli xaal gurigiisa uu ku noqdo insha allah allah u dam barigaas ay ugu dambeysay gurigiina lama bixin gurigiisa uu iska helay oo dhamaatay allah latiifa baybad marka shaacali meesha uu leeyahay meeshan ka nimid annaga ma wada ah kulligeen ma isaga sheegay isha Mustafa bir hore ka soo guureeyo isaga yimid iyo kolka dadku runtii dhulka hadalka uu Sheekh Mustafa sheegay dhab ah waa shirkad baabaaday weey ويرتاي صدح مركيين لبا يا فاشل في البيت لا يمكن ما ويرتاي با دد اسكو دائما ويرت ولي واحد ركيس دد دقوبي اسكو دقوبي عرور وين اسكو دلايو نقول له ماشي waa lagu kala tagay ama waa lagu kala tagay mee wadaadkii waa qisa tariifa ayaa iyaduna jirto amaarada marka laga hadlayo ay culimadu soo guuriyaan al-imam Abu al-Wafa ibn Aqil al-Hanbali qisa qabsatay bay ahayd بغداد بكسو حجي نيكا تقانين صاحب الواضح في أصول الفقه إسكالها كتب بدن كتج أصولها فقيها مؤرخة صاحب الفنون شيخ الحنابلة وعلى الإطلاق وغزالي الحنابلة وتقانان مركا أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي بغداد بكسو حجي مكو يمد أصور مركا منائي مكايس كده حوريقا يحجينا لما يستي ولنا على النقنب وحوها لي كول بمالكها لي كول دائما ومعلن تنقالي قال لك سميي دون يميق قدونا لغو تحي عص كوش بيسكا قراضي سوا هيا يوحون مقلي نين واييلا ومن هبين نبا قورها يكو هيا كل واقع بادي اسلام يا شيخ كل قدونا يا شيخ كل كان وحوري ابن عقيل قاشن يقعد هاي بوري وحان اسلها يو صايد واي قدماتي بغداد ان كن نقدان ربا اون ولي بيت المقدس سيمرو وانت مثل الاقصى تو كنت كدو اون شام دحمرو كدب ان بغداد كسو لابتو كل وحو هلي دائما oday wuxuu leeyahay kuusha ayaa ku yaba ku dhawaaqay ninkii baadida ii sheega 100 diinaar oo dahab aan siinaya waa kuul oday ku raadinayo 100 diinaar oo dahab 100 diinaar oo dahab ma iibsan kartaa idinka hadda 100 diinaar oo dahab diinaarkii wuxuu waa 4 gram iyo 125 riga isku kay dhuftay ragina wata kalkulatorka igu dhufta 4.125 waxaad ku dhufataa 100 igu dhufta inta gram ay tarmaan ogaadee 4,000 iyo 200 gram miya maxaa jiraadeen 4 boqol Sheekh Yuusuf
يا أفر بقولها حبك ما تجران أفر بقول وحكون فتا 4 بوينت بالعرض كدمنا 125 وانتم انت بقول كله فوق أفر بقول طويل لو جرام حكون فتا 6 شلين وعلى جرام كأ 2 مليون 2 مليون شن بقول وكون سكدي متى مسمى 2 مليون شن بقول وكون برا أضيقة إنه ديبنينك كوشة وشيء إذا كم مرة قياس كوش قيمة هذه أنت دنتاي يوحى كتيرة يوحى لقسم يدائما نمط كذا يقال نمط كذا هذا كان يكون كرت كوشة هشام حدي هاي باتيانغ سما باتيانغ بركي زوجة ما قصر قال له شيء كوانا اللي شغله أضو السعودة هذه هرطة وحكون عنتي قاتان بحقولي وامحي نصيب كي نيمان وحلا دعية وحلا قات أو قدران ما نرق عذر كيو سيدن قل إسكي إلالية أمانات كي حقوق الناس كإسكي إلالية المهم إلهي درتي يحق الناس إسكي إلالينتي يا لك عبسي أيو كوشي ابن عقيل أضيق أديبي أضيق واخل بابت وافر حي بقولك دينار بس كسو قوي وحلو والله أنا كاقادم ما كاقادم معي بهذا هيسنا ولي ما نرق ابن عقيل ليه بهذا أنا قبل العقد أيضا قبنيمو وضبانتا هي بخت الله معون هذا ضمان بعيدين سومالي ذو هي درك ولا اسكدوا اسك إلهية مصلحة مقاربة لو صحها وشو ما هذا اسك إلهية دخس الدنتي بقرن أوجها توشية تنافي عن قبنيمو هولا قبنيمو لقاتا ابن عقيل وحول مركا وذيك العقد وان كديده ويدعي ويسكتغي حجكي بعد ماضي waxaan go'aansaday inaan baqada ku noqono bay ilaa wala intaan iska lugay aan aado muslimiinta si marti gala aan baytul maqdis mas'uul aqsa aan ku soo tukado aan soo salaamo mas'uul aqsa baan tagay waan iska soo laabtay xalab baan imid xilli ramadaan baa lagu beegmay anoo aad u qarqarahaya gaajo xun haysan masaajid muslimiintu inay ku soo dhacay buu salaadii baa la gaaray caamada masaajid ku soo buuxisay waxay dhaheen nin garweyn oo yar quruxsan baa tahay show sheekh baa tahay war maxaad leedihiin imaamkii baa naga dhintay balna tuji salaadii baan ka bixiyey buu waxay dhaheen nin qur-aanka yaqaano qiraa'o fiican baaba tahay tana waxayna tujiyo salaadaha naga bixi intaan imaam kale ka helayn habeenka horta afur fiican bay isiiyeen waa i nooleeyeen guri fiican bay i geeyeen meesha waxaan ka noqday buu yidhi sheekh iyo imaam xalab بشر رمضان ما كان دمات يبي يقول لك مرهر كده نايم ماشي دكان واحد شيخ وانا قتقي ومحاج شرا نينك إمام كان نقد انتي قبل ودلوا يقعدوا قروح السنة ويشوفتان كوم مهرنه مسألة كي قبل أنا اسكت درسه رام بقول كده انت إمام بقى قبل دي سنة قروح السنة ويشوفته قبل ده قرصه هير كان هكتقي ولا قتشعلي يطفي تعال ركود نقد شوك قبل دي بقى أهل كده يقول مهريين بوري الماديرتد ولا يقول مهريين gabadhi baa guursaday muddaan jooga sanad dhan baan meesha joogay buuri gabadhii uur bay qaaday wiil bay iga dhashay iyadoo umul ah bay umashu ku xanuunsatay buuri anoo marlin gabadhii uun roogay baa maalin waxaan ku arkay luqunteeda kuushi aan ka helay xaramka aan ka helay mina ka helay ee baadida ahayd ee odagu uu yaahdeenayay qudhigeedii kuushi baan si fiican u firs xarigii miiqi baa ku jira gudnaay casa kuushi waaba kuushi هاري بوري وحاسك يسوي حق وش قبض شو أضيقي بابا قبضنا علي إمام كدنتينا وأضيقي هاري كوشان هذا كور حوانا خلق بصدي ما نكاغ شيكي قبضي هاي الجريات بابليد هاي وحتى بليغ شيكي هوش من وشيكي بوري قصة لما يستلم من ديبي قبض وين مرادي بيجري وين مرادي بوري وين بيديبا أبه دعادي سبار دعادي أبه وحدي من دي تري تنتون دمانين intuu tukado oo salaatuleelka ku tukado oo yiri ilaahay oo gabadhayda waxa u sahashaa sidii ninkii kuusha ii soo helo kale ilaahu gabadhayda waxa u sahashaa u guursaa nin lamida ninkii kuushi inta ah intuu soo helo asagoo u baahan keenay baadifadkina iga diiday
waxay tiri waaba adiga miyaa ducada aabbahay baa la aqbalay gabadhii sidii bay ku dhimatay waan xabaalay odaygu wuxuu ka tagay gabadha waxay ka tagtoo dhan iyo dhaxal u helay iyo kuushu qudhigeedii yaa dhaxal u helay alimaam ibn caqiil alxambali iyo wiil boqolla ah baa ilahay meesha ka soo siiyey kadib sanad kadib waxaan ku soo laabtay buuri baqdaad fiqigiisa cilmigiisa buu sii waday wixii ilaahay dartii aad uga tagteed ammaanada iska ilaaliso abaalkaa wanaagsan buu ilaahay kaa siinayaa hadda kor waxaan yidhi waxa la abaashado shay axad wax la abaashado waxaa ugu qiimo badan allah subxaanahu wa tacaala wallahu subxaanahu wa tacaala aclam أبو سلمة رضي الله عنه حديث النبي كما قال والحديث في الصحيح وحم قال النبي قوله ما من امرئ مسلم تصيبه مصيبة أي كل عضو أو فيسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون إلى ثم دعاء كد عيستا اللهم أجرني في مصيبتي مصيبة إذا إله وإيجا أجرسي وأخلف لي خيرا منها وحكى خير بدن إله يقول بدل أحد سايا لم يجر إلا إله وصيا حديث كيبو قريسي لتجي أم سلمة وزوجتي شاهد باك مقشي مصيبة يسقي ريركي بيبقى كنت ميدو يسقي بعدنتي أم سلمة أسكشي كينيس رضي الله عنها وحيت لمركي ودنتي أبو سلمة دعادي بان كنت دعايستي لكن وحان سري بيتري دعادا وأخلف لي خيرا سقمت إيجا خير بدن إله ويسي وهي لسورة قلي ويدي كي أبو سلمة ياك خير بدن كربا أخلاق ديسي وناكسنا يا معاملة ديسي طيب كأهيدي يا سوى كلام نقون كرا دعادي وأكو دعايستي عدة دي مركي لما تبيتري ولي باللحظة دي أرنتنا دعدي أي تقييد سوي قرته وحيت أنا وأو مقار محل أورنجري حركة دي مقدني سماين أف سومالي وبس كسي اللي بينابن أيوة نبي يقصوا إذا قاتل يرد وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت بركن بانو دقي بيتي حشوها ليفن وكفر يستي فخطبني إلى نفسي صلى الله عليه وسلم نفتي سوء بمارك تأخذ يعني وين مقرشدو مركز كان كوري بيتي يا رسول الله قفرت مسلمة ومؤمنة كديني كرتا ما بجرتو أو تاسي أرن تاسي ما بس وبنابا لكن صدق عباد من له لكن الشيخ هذا لها قفل بابا وحش الشيخ لكن يضوي شيخ وايدري صدق عباد من له هو عيبت كوباد وحيت له هنو وين هذا يقفين بناي تلا بعدنا وحيت عرور من له هي وعرورته دي عيب ما لكن وثقل وعليش وأنا كوع عليشيو مجهدي أرنت صدحاتنا وأرن قلبي قاهو كوهر مادة محسوسة هي لكن كان وأرن قلبي وحان هاي بيتي لقف غيرة بدن غيرة مساير بدن بانا هاي هذا يقولنا هوين بدن بدن لا هاي حتى هذه شوكة مجاملة وحان كبقى يا إلهي قلبي أنتو وحكت على عضو إنه يعذابه مركع صدح هذا عيبود من لا هاي إيش لكم ما بديدين وأنا كنت ديدكم مده كربي لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هرنتي وأوسهله وحيلي دا أتشيغتي أم بواقع هيسا أم بدأ بانها فلقد أصابني الذي أصابك عيال كان سوماها وعيالك وعيالك عيالي أرنت صدح هذا ومسيرك سوماها فأنا أسأل الله حلك أكتي سوا بس كسهلا دايبا الحل عنده سهل أنا يقين تايبر نقول نقطة وسهل دربي هذا مدحوك قراعنا أما الغيرة سوماها فأنا أسأل الله إلهي بان بري يا ويدي سنة يايو فيذهبها عنك وكاك حين إلهي باكاك حين غير هذا إلهي باكاك حين أم سلمة وحيتني فأبدلني الله إلهي وحي بدلي خيرا من أبي سلمة وكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أركا أمهات المؤمنين سيدا سيكون نقطي بل من أكثر أمهات المؤمنين حديثا بعد أمنا عائشة نقطي رضي الله عنها وأرضاها وحين تاكوها الشيء وأساسه تكوين حلقة التعليم في البيت هارون الخراساني وحوها نين دلين يراه مسلمة هارون الخراساني وحوها دلين يراه مسلمة قيس وناكسن وصالحين دلي قيس كا وناكسن صالحين تاهي دلي آبي هوية إسقبا دلي سي وناكسن بوكري مساجدكو صفكو هور إيمان جري مغربيada kamid isagoo masaajidka u soo socdaa wuxuu arkay caruur kubad ciyaarayso masaajidkii diidanoo aan tagaynin oo niman waaweyn oo isaga ka waaweyn
wuxuu is yidhi qalbigiisaa naxay oo wuxuu yidhi carruurtan walaalahaagan maad salaadda ugu yeedhido intuu tagay buu ku yidhi walaalayaal kale tukanne waxaa la yidhi sheekh dhowr daqiiqaanu ku ballanno oo 2-3 daqiiqaa noo dhimane noo yara istaag waanu ku raaciye daqiiqadihii baa la dhammeeyey waa la israacayo masaajidkii baa la aaday waa lala tukaday maalintii labaad buu soo maray wuxuu yidhi walaalayaal ina mariya waxay yidhaahdeen wax yar noo kaadi oo in yar bay ku sii dareenoo rakacadda horuu gaadhi jiray ama takbiirta hore takbiiratu ixraamku la ridan jiray imaamkee wuu ka daahay maalintaasoo wuxuu yimid rakacaddii labaad maalintii saddexaad waxay ku yidhaahdeen sheekh inaguba jamaacaan nahaye halkan inagu tuki halkiibuu ku tukiyey ya maalintii saddexaad waxay yidhaahdeen niyow saaxiibbaan nahaye maadaa salaadda nagule horta noo yar kaadi bal ilaa maqhribkii baxay bay cisho tukadeen maalintii afraad isagaa la tashkiiliyey oo meelahay u kici jireen bay u sii qaadeen aabbihii baa raadiyey wuu garaacay salaaddii buu ku soo noqday way kala maqnaayeen muddo maalin dambaa laysa salaamo lidhi alla war cunugii fiicnaaniyo xagguu kacay masaajidkiibuu ku noqday dhowr jeer markay dhacday taasi oo arrintaasi socota buu aabbihii dhintay oo malagii galay aabbihii baa dhintay wiilashiibuu toos ugu biiray marka isagoo wiilashii la socda yaa wuxuu yidhi waxaa lay baray khamrada waxaa lay baray daraagiska waxaa lay baray inta xun ee bani aadam cuno oo dhan baan bartay inta xaaraanah la sameeyo oo dhanna waan bartay wuxuu yidhi hadda khamradaan cabbaa laakiin weli gaalnimo ma gaadhin mushrik ma noqon maalintii dambe wuxuu yidhi aniga ku kaloo meel joogna yaa la yidhi gabdhaannu magaalada inooga keenaynaa gabdhihii sidii loogu maqnaa baa waxaa la keenay buu yidhi gabdha ay walaashay ku jirto markii hore waaban daroogaysnaayo maba garanaynine goortii wuxuu yidhi wax walba ay dhammaadeen oo mid saaxiibka iyo xumaan walba ku sameeyey walaashay unbay soo kacday oo iyadii garatoy naxday oo arkay iyadoo sii ordaysa waan eegay mise wallaahi waa heblaayo waan ka daba kacay oo kii baan midi caloosha ku kala wareejiyey buuri kow dhiiggii islaam buu galay salaaddii wuu ka tegey khamradiina waa cabbay dhiig islaamna waa marayaa soo maaha habeenadaa ka dambeeya ramadaan baa soo galo habeenku ramadaanku dhammaaday iyadoo takbiirta la qaadayo baa anoo khamro ka soo dhargay baan gurigii hooyaday imido hooyaday baa aad intay u ciishootay bay tidhi maxoolihii hebel baa anoo nool khamre lagu cabbaya markaasay wax meelahan igaga dhufato goortaan xanuunsaday yaan habartii yar dhardharbaaxay oo markaasaan isniyo kaalay habeen walba wayba ku haysataa maxay ku haysataa intaan qaaday baan foornadii oo dabka shidmayo oo miici iyo dhuxulo ku bisil yihiin roodhiga lagu dubi jiray baan hooyada intaan isku duuduubay oon dumiyey qayb ka mida baan dhex dhigay oon ku daboolay buuri iyadoo cabaadayso hooya ileh maba garanaya buuri ficilka aan samaynayo leanna waxaa la dadka maanta daraagiska isticmaalaayo wax bani aadama oo wuxuu cunaya ku iibsada jidhkiisa xubin ka mida dadka daraagiska isticmaalaa la arkay daraagiska dadka haddaad gaajooto maanta kolla ishaada gadan maysid haddaad gaajooto lugtaada kolla gedi maysid si walba hadday wax kuugu dhacaan kolla xubnahaaga gedi maysid laakiin ninka daraagiska isticmaalaa markay dhibaatada ku adkaato kelidiisa iyo ishiisa iyo dhegtiisaba waa iibinaya wuxuu idhi waan ku daboolay meel baan istuuray oon iska seexday muddo markaan jiifay islaantii baa loo soo orday oo iyadoo qurjujumtay baa loo yimid waa la aasay markii la aasay baa gurigii layga saaray subaxdii dambaan iska soo qureec doonta islaantaydii markaasay tidhi iimaanka alla kaa qaad ma waxaad xalay samaysay baad aniga qureec iga rabtaa war soo imaan laawi hooyadii dilay matid naa maxaad leedahay markaa wuu quman yahay naa maxaad leedahay hooyadaabaad xalay dishay seenu dilay hooyaday anigu xalay maba aragay war ma inaad hooyada xalay dab ku riday baadan ogeyn oo intaad god ku riday weliba aad afka kaga dabooshay dhuxulaho ololaya ood foorno ku shiday xalay hooyada ma ogi buuri halkaa markaan marayay baan baraarugay buuri marka waxa i gaadhay markaasaan gartay markaasaan dadkii iyo addoommaha oo dhan ka cararoon is idhi bal ilaahay caabudo bal inaad hadda soo noqon karta isku day 39 jeer markaan xajiyey yaa imaamka la odhan jiray maalik ibnu diinaar ee taqiga ahaa ee caabidka ahaa ee maxaanku dhahdaa salafkii ummadda ka midka ahaa maalik ibnu diinaar baa xajka yimid xajka markuu yimid buu iyadoo carafa la taagan yahay buu ilaahay aad u baryey markuu ilaahay aad u baryey baa wuxuu ku riyooday iyadoo haatuf la hadlayoo qalbigiisa lagu soo riday inta ruux riyo ugu yimid baa wuxuu ku yidhi dadka halkan taagan oo dhan ilaahay wuu dhaafa ilaa qof mooye intaan naxay baan booday oon isidhi buuhi malaha dee waaba adiga alla ilaahu keligay maanta ka uguna sii daran hayga dhigin waan orday oo waan cibaadaystay oo waan dadaalay mise haddana intaan daalay bay lulma uun sidii oo kale geedkii hoostiisa igu soo dhacday waxaa la yidhi ninka la yidhaahdo abu axmed haaruun alkhuraasaani ninkaa mooye dadka inta kale maanta joogta rabbi waa u dhaafay
ومالنت إلهي دعاء بني آدم كودان أقبلوه وحيد وان سو أرضي وان رادية ورا خراسان بعثضوا ذي هالكيد دجنتها قلدي حجك وقصوا قيب قشة هالكاسي دجيه وانو تجي وحان ولا الله يالو هارون الخراساني تص مركز اللي يري هارون الخراساني ميان نقطصناها وانك عدقه عبادة سنة أوية صلاة كشرة مركز أكفر استي صلاة مركو كبحي يان سلامي مركز يقول يري مالك ابن دينار باطهي ها محاد دوني سبلي ورن مركز أنا يقول إني هو أرهن لا يابلانك ملا هذا الشيطان بعد جاه يجوا كاشي نينك أجا عابد كعين كاس مجي عيسى أنت عن كل رياضي باللي يقول يري نينك مويه إلى هاي أنت كلنا واقبل عماش هذا سو قرن ميست كورهن مركز أنتو صايصو يقول وانا صير دران قبائه صدّن إيا سجال شير ومان تكهر رئيسي بان هل كان يمدو صدّن إيا سجال كي شير بعرف الروح بان تو يمد يقول يري أديك إلهي كوما دافن أو أنكو قريون ومركي أفرتنات بوري مالك وواحد ما يستريساي مركزه بالله بينو دعايستو يري هذا إلهي وهذا أدوه يداف ياك لو يداف إنه إلهي التبرع آت يصبهم به يؤادوا الماء إلهي وقفت السوى يقعد عضي عن جهل بقى يقعد عضي علم الآن بقى يقعد عضي إلهه هو يدي وحن كسمية إلهه هو يدي وحن كسمية كي إسوغا مانا هاي لكن صببت أنا لها وحوية مالك ابن دينار وحوري مركان الساقي كان نقضون مدة شوغي مالمه لقو جري أيام التشريق هبين كودي هبين كمدة on منه هيدي وبان هدنا الرياضة اللي يقول يري إبراهيم هارون الخراساني إلهي وأوناف وحوية حمان تدنبي بهر تدنبي بكوليبه لكن عبد الله بن عباس وحو كنت قفت إلى إلهي أكتي توضب ملها سوما ذنقرا وحو يري أهلي مهايا وحان كفصر خالدا فيها وكواريا معنى هذا وارد أنا هين إنه ولي كجري هدو توبة ليهي إلهي خالدا ما يجري أبا هريرة رضي الله عنه قاجد رادد مسجد النبي مركز صلاة الله قدر هرو أي يريد النبي وكبح أيو كدع جري ninka reer miyiga magaalada Madiina ku cusub ayaa intuu isku dul taaga oran jiray warmaad warantahay meesha ka kax markaa buu oran jiray ma wali Aba Hurayra wuxuu leeyahay wali ma waxa la jiifay gaajan la jiifay buu yiri Umar baa yimiday markaasaan Umar ku yiri aayada Quraanka halka aayada Quraanka ay ku soo degtay Umarow markaas Aba Hurayra wuxuu yiri marka Umar aayada Quraanka aan weydiinayay garasho la'aaniga ma yahayn waxa iga ahayd عمر وجهه انتو صوفيريو غاجده وجهه كتاله انتو ايغو حق غرتو حكو يرادا ابا هريره غاجا كو هيسه قال الى سو خيراد الى سو عشيه امو فهمين ايات دي بو يغا جوابي بوري يالك سو دغتي هذا ابو بكر بايمد ابو بكر ودنا بل ايات يغا جواب هلكي سو دغتي ابو بكرنا يما غرانو يما فهمين ايات دي بو يغا جوابي بوري وابا هريره باهي با هيسه صدح مال مودي صدح حبين عفكي ساعة مقلن حدنا أبي بكر يا عمر إنه باهي وشيكتبو أيو كقر سنة إنه كان أبار أونن إيمان بادتكو أبار سيش أبا هريرة قاجدي سي عمر ومشيقن أبي بكر ومشيقن وقر سنة يي لكن وحو بلسير وفرسمله أيو وجه أقوم بالكل إيغان هكاد دريمان وحكو يرادان أبا هريرة مركو رد على الصفة هذا هيدا ومقالة مدينة قرانية قرابكم لهينه واد قاجوتي إن مري هكو يرادان يكين ما يفهمن ولكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام برقو النبي يقول يغصوا بحيبا هل كاسو النبي يقول كفهمي هل كابو كفهم يا أبا هريرة قال عاواني إلى سوء عشاء أبو كيدي قال إلى سوء عشاء كوب عانو النبي يقول يمد الرير كيسي كوب عانا هيا الله كوب عانا كويا لنبي الله يا أبا هريرة مسكيتي كل نقو أهل الصفية ودن النقوة غير عاوة عنا هنا العباني وكوب عنا أبا هريرة النبي محمد هذا الكيس ما أورنكره لكن يبدأ كان يريبو يري كوب كان عاناها أدقون بكوكو في عناية ميا اللي بقول لي بقى حكو عبادة ستة الله بحبيني أهل الصفوة ورقات قرني سيدي مسكيت كده جنايو أياك اللفت دوكم مع الميت الوحبعون ده كل النبي كل كويرو أي نادان فريستان أدو كورنا أبا هريرة عنا قادو سيسي كوه الرئي الله سيه همين بول
laakiin nebi maxamed hadalkiisa maya may odhanayna way u yeedhay aqalkii markay fadhiisteenna sidii uu ka malaynayay meesha u dhacday yaa abaa hurayra buu nebigu uhi koobka canaha qaad ninka ugu horreeyana u dhiib ha kana qaadin buuhi ilaa isagu kuu soo celiye mooyaane waa koob canaha ragga loo yeedhana waa raggee ahlu sufa kii horreeya markaasuu u dhiibay waan eegay waa caano halkoogii jooga kii kale aan u dhiibay halkoogii 90-70 nin iska dhe markaasuu nebigu yidhi yaa abaa hurayra ayaa hadhay ii sheeg yaa rasuulallah adigii aniga hadh fadhiiso aduu cab waan cabbi ku celi haddana waan cabbi ku celi ilaa aan idhaahdo ilaaha xaqa kula soo saaray baan ku dhaartee caanaha meel ee caloosheeda ay ka maraan oo bannaan haddeeto layguma hadhin baan idhi buuri deedna markaasaan hambadii buu nebigu qaatay hambadii buu nebigu cabay alayhi salaatu meesha la yidhaha andalus iminka Spain baa loo yaqaanaa intii gaaladu ay muslimka ka eriyeen kadib wadamada Yurub mid ka mid ah weey dawlado badan baa soo maray waqtigii muslimiintu halka ay ka talinayeen waxa ka mid ah dawladda loo yaqaanay ad-dawla al-aamiriyya mu'assiskeedu yuu ahaa dawladda ayaa asaasay dawladda waxa asaasay nin gaari ximaar la ah bal ka war nin gaari ximaar la ah ayaa dawladda asaasay qisadiisu way dheer tahay laakiin in yarun baynu ka ishaaraynaa saddex nin baa saaxiib ahaa waxay ku shaqaysan jireen bahalkan gaari dameerkan gaariga jiida iskaga shaqaysan jireen maalin maalmaha ka mid ah iyagoo ka shaqaysanaya waddanka saddexdii nin way daaleen way iska soo rawaxeen intoodii raashin ahayd bay iska soo qaateen iyagoo iska sheekaysanaya ayaa mid ka mid oo hamigiisu caalay haa sareeyay ayaa labadii kale wuxuu ku yidhi hebelow haddii aan waddankan khaliif ka noqdo oon madaxweynaha muslimiinta noqdo maxaad i weydiisan lahayd wuxuu war inaga seexo ayna wareerinayne gaari ximaar la madaxweyne noqonaya adeer wax isqabanaya ma ahee wadadeediiba ma hayside iska seexa buuri waa daashee war adigu ifrid ka soo qaad baan ku yidhi ka soo qaad waxaan ku weydiisan lahaa buuri haddaad igu celcelisay inaan samays beerta hebel oo aad u weyn oo kale inaad maxaan ku siiyaa buuri maxaan ku siin lahaa iga codsan lahay waxaan kaa codsan lahaa buuri 3 arrimood beerta weyn hebel oo kale inaan helo soo waa beer ag mara maalin walba markuu gaari ximaarka eriyayo saa u howrto barwaaqo badan iyo intaasoo farason ku damaashaado adoomo nooca iyo noocaas intaasoo kaashahoo lacaga gaari ximaarkuna aad ka nasatid buu isleey anuu intaasaan ku weydiisan lahaa kii kale uu war adigu maxaad i weydiisan lahayd war adeerow suuragal maaha gaari ximaar leen madaxweyne noqday inaga seexan ku leeyahay isna intii leeg buu ku celiyay wuxuu yidhi bal ka soo qaad inaan noqdayba ka soo qaadun adigu ifrid qadarba anigu waxba kuma weydiisteen buuri maxaan gaari ximaarle wax ka weydiisanaya haddii ilaahay madax kaa dhiga buuri aniga haddii ilaahay madax kaa dhigo aniga waxaad isaartaa buuri gaari dameer isaar weliba isii jeedi suuqana imari waxaad tidhaahdaa kaasi waa dajaal waa beeraale waxba ka dhagaysaninaay qofkii raacana waa la xidhayaa ogeysiiskaa bixi buuri adeer annagu rajo kaama qabnee ninkii subaxdii buu gaari ximaarkii iibiyey habeenku saa ula tashanayay buu gaari ximaarkii buu iibiyey kadibna dhar buu iibsaday oo is hagaajiyey wuxuu u xaadiray bilayskii la qorayay ciidankii bilayska waddanka loo qorayay ayuu xaadiray wuu dadaalay aad buu dadaalay wuxuu u shaqeeyey si aan ciidanka kaleba u shaqayn oo daacadnimo iyo hufnaan iyo hawlkarnimo leh xoogaa garoomaa baa la siiyey oo waa la soo dallacay kor baa loo soo qaaday wuu sii dadaalo magaalada madax looga dhigay wuu sii dadaalo wuxuu gaadhay ciidankii madaxtooyada ilaalinayay inuu ka madax noqdo ayuu gaadhay markii dambena xokayntii khaaska madaxweynaha ayuu gaadhay markii dambe waxaa dhintay ninkii waddanka madaxda ka ahaa ayaa dhintay waxaana markaas meeshii loo magacaabay inankiisii yaraa hishaam almu'ayid billaah inan yaroo 10 jira ayaa la yidhi dhaxaltooyada isagaa leh qaladaadkii dee madaxda muslimiintu waqtigaa gali jireen bay ka mid ahay ninkii isaga ahaa halkii buu ka agdhow yahay waa ilaalinayaa inankii yaraa iyo hooyadiiba gacantu ku dhigay
oo wuu u sarreeyayoo ixtiwaa buu ku sameeyey waxay sii socotayba markii la arkay daacadnimadiisii iyo dadaalkiisii isaga ayaa loo magacaabay inuu noqdo howlfuliye ilaan habar iyo inan yaroo meel soo fadhiya arrimaha culuse ummadda fulin maayaane howlfuliya loo magacaabay isaguna waxbuu yaro dhaqdhaqaajiyeyoo markii dambe isagaaba taladii isku soo leexiyey almuhim meeshii wuu qabsaday ninka la baxay buu ahaa haddaad taariikhda Spain Andalus akhrido alxaajib almansuur xaajibku waa kii gaadhayaha ilaalin lahaa almansuurna waa kii loo hiiliyey ninkii gaadhayaha ahaa ee horu maray ayuu magacu sheegaya alxaajib almansuur haddaad imika ku baadho taariikhdiisa waad heli karaysa ninkii wuxuu noqday madaxdii muslimiintii halkaa soo maray raggii ugu jihaad badnaa ugu futuuxaad badnaa ee dowladdii halkaa ka madax noqda macrika iyo dagaalu cadowga la galayna taariikhda waxay sheegaan inaan lagu jabinin oo ilaahay uu siiyey nasriga uu ka sugayay akhiiran waxaan uga socdaa 30 sannadood maalintii uu campaign-ka bilaabay 30 sannadood kadib ayaa habeen isagoo la fadhiya culimadii iyo gabayaagii iyo acyaantii waddankii iyo tujaartii isagoo la fadhiya ayuu warkii xusuustay ciidankii mid ka midaba u yeedho wuxuu yidhi war bal meesha heblaaye iyo heblaaye la yidhaahdo magaalada tag 2 nin oo nooca iyo noocaas oo ciddaa ka soo jeeda oo xirfadda gaadha ximaarka la yidhaah ku shaqeeya bal soo dayday askarigiina wuu tagayoo wuxuu dayday waraystaba 2 nin buu soo helo weli sii nool isagiina waa madaxweynihii waddanka oo carshi dheer buu saaran yahay kursi dheer ninka laga agdhowiyey meeshuba u siraadantay waa isaga 2 nin baa markii uu yidhi waxa idin doonaya buu ku yidhi askarigii amiirulmu'miniinkii baa idin doonaya ninkii ummadda madaxweynaha u ahaa baa idin doonaya way qayliyeenoo waxay dhahaan adeer waxba maanaan samayn masaakiin baanu nahay adeer iska kaayada waxay moodeen in la xukumayo la xirxirayaabay moodeen ila madaxweynaha ku doonaya marka haddii la madaxweyne baa ku doonaya gaar ximaarka halkan ninka iska jiidanaya dee wuu qaylinaya wallaahi maanta qabtii weynayd baad ku jirtaaba odhanaya markii dambe wuxuu yidhi war wuxuu idiin doonayaba war kama haysaane hortayna keena way raaceen markii ay u tageen dee 30 sano qofka bani aadamka siduu isu bedelaya waad garan karaysa ayay u fiirsadeenoo wuxuu yidhi may garanaysaa hebel iyo hebel baatiin haa soo 2 nin baatiin hebel iyo hebel la odhan jiray may garanaysaan buu waanu ku garanaynaa bay idhaan adigu miyaadna garanaysa waan idin garanayaa buu waataynu habeenkii halkaa iyo halkaa wada fadhiisanay arrinku waa sidaa dee maanta halkan aan taaganahay waaya qisadiinnii ugu soo celiyay buu ihi barragga halkan fadhiya waa golob dhan oo dee ummadda madaxdeediia bal qisadii ku yaro celiya buuhi berigii aynu isla halkaa iyo halkaa ku yaro celiya mid walaba codsigaagii bal soo jeedi buuhi markaa wuxuu uhi wallaahi aniga dee waa faraxsan yahay kii hore wuu faraxsan yahay wuxuu uhi wallaahi aniga codsigaygu caynkaasu ahaa oo kaasuu ahaa oo kaasuu ahaa oo kaasuu ahaa beer baan codsaday oo fardaan codsaday oo addoommaan codsaday oo lacag baan codsaday intiiba waad leedahay buuhi maanta kii qasna joogu uhi waar orod xogayii maaliyaddu mee oo arrintiiba sii codsigiisa kii kalea wuxuu ku yidhi adiguna maxaad codsatay wuxuu yidhi cafis baan kaa codsanayaa ila wuxuu codsaday u ogyahay inaad cafido ayaan kaa codsanayaa buuhi waar lagu cafiyi maayo horta dadka u sheeg buuhi markuu ku celceliyay dee nafti ay qabatay ayaa uu sheegay wixii wallaahi caynkaasaan ku idhi oo caynkaasaan ku idhi caynkaasaan ku idhi intii ku sameeyay buuhi haddaba isaga intoo gaadhi ximaarka dameerkii saartaan dib u jeediya oo dadka dhexdooda wixii uu codsadun ku sameeyay buuhi wallahi inaan lagaa dhaafayn buuhi marka muxuu ka duulayaa wuxuu ummaddu casharo u dhigayaa wuxuu ihi hankaagaa liitay mid hankiisu liitaad ahay sidaa daraaddeed lagaa saamixi maayo magaaladaa lagu wareejinayaa almuhim qiso dhacday bay runtii iyaduna ahayd oo jirtay oo aad arki karayso marka weliba wuxuu u daliishay ina allaha calaa kulli shayin qadiir si aad u ogaata buuhi ilaahay inuu wax walba karo oo aan ilaahay waxba ku adkaanin intii aad codsatun baa maanta lagu yeelaya laga alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii wuxuu u sheegay umayata bnu lkhalaf inay saxaabadu dili doonto umaya markaa makuu jooga wa safwan ibnu umayya bihi umayata bnu lkhalaf oo maka jooga ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii madiine joogta wuxuu u sheegay umaya inay muslimiintu dili doonaan umaya ninkan la yidhaahdo iyo saxaabigii sacad ibnu mucaad la odhan jiray ayaa saaxiib ahaan jiray fii jaahiliyatihim
marka sacad ibnu mucaad markuu maka tagana umayyu ku soo degi jiray umayata bnu lkhalaf marka uu yimaado madiinana sacad buu ku soo degi jiray marka labadii nin midna waa islaamay midna weli waa gaal sacad ayaa markaa wuxuu u soo baxay inuu soo cimro tago markuu soo cimro tegay ee uu yimi magaaladii maka ahayd ayaa waxa uu sheegay abijahal baa arkay abijahal wuxuu ka cadhooday sacd ibnu mucaad wuu soo cimro tegay cimruu yimi saaxiibkii buu ku soo degay saaxiibkiina wuu soo kaxeeyey wuxuu rabaa inuu cimradiisii guto abijahal wuxuu ka cadhooday muslimkan meesha marmaraya abijahal baa war xun sheegay oo uu hanjabayo saxaabiga kan sacd ibnu mucaadna waa iska dhiciyey waa u jawaabay umaya markaa sacad la hadlo wuxuu yidhi ma warkaasaa waxaad ku leedahay odaygii reer maka ugu weynaa abalxakam baad waxaa kula hadlaysaa buu leeyahy sacad oo cadhaysan oo labadii gaal ay isu raaceen ayaa umaya wuxuu ku yidhi yaa umaya fawallaahi laqad samictu rasuula allahi sala allahu calayh waaalih wasalam yaquul innahum qaatiluuk adigu maxaabaad igala hadli ilaahay rasuulkiisii baan maqloo sheegay inaanu adiga ku dili doonne adiga in lagu dili doono nebi maxamed baaban ka hayaa maxaad ka warramay buu yidhi umaya markaa wuu naxay ilan sacadoo maka jooga way abujahli safdhaafee ayaa markuu umaya yidhi odayga sidaa ha ula hadlin ayuu umaya u sheegay inay muslimiintu dili doonaan umaya wuxuu yidhi bimaka ma makaa laygu dilaya anuu maka jooga ma ikhtiyaal iyo wuxuunbaa laygu samaa maka gudaheedaan ku dhimanaya qaala sacdun laa adri ma ogi buu yidhi meesha lagugu dilayo laakiin nebi maxamed wuxuu ii sheegay calayhi salaatu wasalaam in lagu dilayo mar hadduu nebigu sheegayna waa lagu dilayaa weeyaan umayaa naxay dabeetana haweenaydiisii xaaskiisii buu tegay wuxuu yidhi yaa ummu safwaan alam tara maa qaala lii sacdu safwaan hooyadiiye miyaad ogeyn buu leeyay maanta ninkii sacad ahaa wuxuu igu yidhi oo muxuu ku yidhi bay tidhi qaala zacama ana muxamadan akhbarahum annahum qaatilii wuxuu sheegtay buu yidhi wuxuu yidhi nebi maxamed baa u warramay inay ii dili doonaan waxaan ku idhi ma makaa laygu dilayaa wuxuu igu yidhi may qisadii buu u sheegay u fiirso gaaladu siday u rumaysnaayeen nebi maxamed warkiisu inuu dhabyey umayata bnulkhalaf baa markaa wuxuu yidhi wallaahi laa ukhriju min maka muu odhanin makaa lagugu dilayaa soo maaha ilaahay baan ku dhaartay anigu weligay maka kama baxayo xaggoodaba ninkii qabta ha dilaan ayuu umaya leeyahy anigu waxaan iska joogayaa makaan fadhinaya maalintii beder markay gaadhay ee warkii soo dhacay ee abijahal soo kacay ee ciidamada ururinayey oo abijahal leeyahay adirkuu ciirakum war xoolihii baa laynaga dhacay ha la gaadho ayuu umaya dib isu nabo wuxuu yidhi bela baxda waa diiday inuu soo baxo abijahal baa waxaa la yidhi odayadii waaweyneed ee quraysheed raggii ugu xoolaha badnaa rag ka mid ah ayaan baxaynin abujahal baa u yimi wuxuu ku yidhi yaa aba safwaan innaka mataa maa yaraaka annaasu qad takhallaft wa anta sayidu ahli lwaadi takhallafuu macak ma maantaad adigu hadhi buu yidhi aba safwaanow hadday reer quraysheed ku arkaan inaad adigu dagaalba u baxayn oo aad fadhido dee cidi raaci maysa buu yidhi cidi dagaal tegi mayso beder waxaan la tagaa ma jiraan haddaad maanta adigu fadhido ee dadka ha niyad jebinine soo baxo soo raac buu abijahal leeyahy isna warkii baa meel ugu guntanaa waa lagu dilayaa war bixi maayo buu yidhi abijahal baa waa ibliis buu haye xagg iyo xaggaba ka maray abujahal waa fircawna hadihi lumma ayuu nebi maxamed ku tilmaamaya calayhi salaatu wassalaam abijahal baa xagg iyo xaggaba ka maray markii dambe wuxuu yidhi ama idaa galabtanii fawallaahi la ashtariyanna ajwada baciirin bimaka mar haddaad iga xoog badatay oo inaan baxo ay qasab noqotay awrka u dheereeyo reer maki haddaba ha iga iibiyaan waxaan rabaa buu leeyay mar hadday bixis noqotay
oo ay tahay inaan raggu dagaal tegin in anugu raacan mooyaane waa ku raacayaa laakiin ilaah baan ku dhaartay waxaan gadan buu yidhi awrka ugu orod badiya reer maka ayaan qaadanaya haweenaydii uu qabo u tago wuxuu yidhi umu safwaanay jahizini naabali diyaari waa baxayaaye waxay ku tidhi ya aba safwaan waqad nasiita maa qaala lak akhuuka lyahribi war ninkii reer yathrib waa madiine magaceedii hore war ninkii reer yathrib warkuu kuu sheegay miyaad ilowday bay tidhi islaantiina waa xasuusinaysaa waxaad arkaysaa inay u cadday nebi maxamed warkiisu inuu xaqiiqo yahay oday iyo islaamba laakiin ciddii meel daran loo wado shaydaan baa wax u bidhbidhiya waxay tidhi warkii miyaad ilowday wuxuu idhi laa maa uriidu an ajuuz macahum ilaa qariiba dadkuun baan dareerinayaaye naa hore u raaci maayo buu idhi magaaladu baan kala baxayaa xaggaa shishe u kici maayo ee waxaan magaaladu baan ka saarayaaye in badan socon maayo buu yidhi ee diyaare sidaasuu ku soo baxay umaya wuu soo baxay meel la dega muu imanin ilaa iyo awrkiisu aada xadhigga ugu geejistaa xadiisku bukhaari ku yaalla waa xadiis saxiix ah waxaa cajiibka ee aad arkaysaana waxa weeyaan siday warka nebi maxamed u rumaysnaayeen iyo siday haddana u baalmarayeen ilaahay baa wuxuu qur-aanka ku leeyahy fainahum laa yukadibuunak walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun baa ilahay yidhi kuma beeninayaan adiga way ogyihiin waxaad sheegaysaa inuu run yahay laakiin ilaahay aayaadkiisay dafirayaan baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala gaalnimada waa u badrheerayaa sidii buu ku socday beder ile waa nin hadiisii waddo nebi maxamed ka warramaye siduu lahaa kolba halkaan gaadhsiinayaa ayuu beder ku yimi beder buu dagaalkii galay dagaalkii markuu dhacaa weerar lagu soo qaado weerarka markii lagu soo qaadayna isagu qoladii isdhiibtay buu ku biiray ila ninkani wuxuu isleeyay waa lagu dilaya qoladii la qabqabtay buu ka mid ahaa waxaa qabtay nimay hore isu yaqaaneen cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa qabtay isaga iyo inaanu dhalayo cabdiraxmaan wado ayaa bilaal soo baxay ninkani waa ninkii bilaal caadibi jiray ee dhagaxa ku saari jiray meesha tani axadka u guri jiray waa ninkuu bilaal addoonka u ahaan jiray bilaal oo dagaalka ku jiraa wuxuu arkay umayo oo maxbuus oo la sii wado fawallaahi laa najawtu in najaa buu ku dhaartay ilaah baan ku dhaartee maanta anigiiyo isagu inaanu midkaayo unbaa badbaadaya ma wada noolaanayno bilaal oo laab soo cararay dabeetana cabdiraxmaan baa isku weegaaro wuxuu yidhi ma maxbuuskaygaa la dilaya anigaa wataa cabdiraxmaan ibnu cawf baa is yidhi badbaadi bilaal ansaar buu u qayshaday isagoo leh war waa gaalkii gaalada u weynaa waa lagu soo yaacay markaa cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi waar balaqaba war istuur oo dusha kaa fuule waa riday dushuu ka fuulo wuxuu is yidhi ba adigu seefta isaga dhigo yaan la dilin rag dhaarsan baa meesha marayay maca cabdiraxmaan oo dusha ka saaran bay hoosta ka geliyeen seefaha oo kowba lagaga siiyey cabdiraxmaanna adin baa laga dhaawacay